daawadayaal waxaynu bartanka ka jirnaa wararkii iyo xiriirka diblomaasiyadda waa saan horeeyay ku sheegay waa isniin waa 20kii bisha 8aad 2018 waa barnaamijkeeni falaqaynta dunida iyo xiriirka diblomaasiyadda aan ku bilaabo qaybtan madaxweynaha dalkaasi Afghanistan Ashraf Ghani ayaa wuxuu ku dhawaaqay in ay dawladdiisu ay sameynayso xabad joojin ku saabsan ciidul qurbaanka waxa looga yaqaan dalkaasi Afghanistan inaguna dabcan ama ciidul adha waxa uu sheegay in tan looga goleeyahay ayuu yiri in dhiiga dadka muslimiinta looga nasto iyo dagaalada culus ee halkaas ka soconaya ee macna darrada waxa uu ku tilmaamay khudbad uu ka jeediyay TV-ga qaranka ee dalkaas iyo qayaanigu wuxuu sheegay in arintan ay noqon doonto ayuu yiri ilaa iyo inta la gaarayo buuri maalinta dhalashada rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo uu sheegay in ay tahay bisha Mawlid waa sida uu sheegay isagoo sheegay in aysan ahayn sabab markaasi loo dagaalamo taasoo ku eg bisha Mawlid waxay ku beegan tahay ama gaar ahaan maalinta uu dhashay rasuulku suubanuhu xariis iyo nabadgelyo ay ku yeeshay bisha November 22keeda wuxuuna sheegay in ciidul qurbaan marka laga bilaabo ilaa iyo dhalashada suubanaha ay noqon doonto buu xabad joojinta isla markaana wuxuu ku amray ciidamada qaranka iyo kuwa amniga kala duwan ee dalka Afghanistan inaysan xabad ku tuurin kuwa walaaladooda ee ka soo horjeeda balse ay istaafacaan hadii guryahooda ama goobaha ay ku sugan yihiin loogu soo galo waxa uu sheegay in arintan ay noqon doonto ayuu yiri mid markaas wax weyn ka taras isagoo ka hadlayay maalinta loogu dabaaldegayo 99 guuradii maalinta madaxbanaanida ee loo yaqaano Darul Aman xarunta dalkaasi Kabul meesha uu ka degan yahay iyo wuxuu sheegay waxaan u sheegayaa buu Taliban inay ka soo jawaabaan arintan sida ugu dhaqsaha badan isla markaana ay xabadda joojiyaan oo ay sii daayaan dadka ay haystaan maxaabiista annaguna waxaan sii daay doonaa dhammaan si ay ugu soo noqdaan xaafadahooda oo ay dadka walaaladood ula ciidaan wuxuu yiri fadlan askarta aad haysataan dagaalada ku qabsateen soo daaya si caruurahooda oo la qaataan waqti wanaagsan annaguna waxaan sii daay doonaa dhammaan dagaalyahanada aan ka soo qabanay dhankin Pakistan ayaa sidoo kale waxay war qoraal ay soo saartay waxay ugu yeedhay hadalka ka soo yeedhay madaxweyne Ghani mid geesinimo leh waxayna sheegtay inay taageerayso dhammaan arrimaha iyo dadaalada ay wado Afghanistan ay ku doonayso in ay dalkeeda ku soo dabaasho walaalnimo taasoo bay tiri tan kaliya ee lagu naalo ayaa lagu yiri warka qoraalka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Pakistan Imran Khan Mr Khan ayaa wuxuu sidoo kale ugu markaasi hambaliyay dalkaasi reer Afghanistan maalinta xornimada ay qaateen oo sheegay inay tahay guul dhamaantood ay gaareen dadka reer Afghanistan iyo kuwa Pakistaaniyiinta ah ee dalkaasi ku dhaqan wuxuuna sheegay in dhamaantood ay yihiin dad isku mid ah waxa uu sidoo kale ra'iisul wasaaruhu ugu baaqay Taliban inay ka faa'iideystaan maalmaha khayriga ah isla markaana ay joojiyaan dhiiga shumaya ee dadka walaaladooda oo uu sheegay inay tahay wax ku dayasho mudan go'aamada ka soo baxaya madaxweynaha dalkaasi qiimaha leh wali farikama qodnee dalalka bangiyada dhexe ee dalalka Qatar iyo dalkaasi Turkiga ayaa iyaguna waxay kala saxideen heshiisyo waaweyn oo ay markii ugu horeysay ku mideynayaan labada lacagood ee lacagta riyaalka Qatar iyo lacagta liirada ee dalkaasi iyadoo oo ay socdaan olole xooggan oo lacagta liirada ah lagu badbaadinayo ayaa arinta marba waxay cirka ku sii shareermaysaa kadib marka ay u muuqdaan dadka muslimiinta ee caalamka gaar ahaan caalamka islaamka jooga inay arintaasi aad ugu baraarugay warkan qoraalka ka soo baxay labada bangi ee bangiga dhexe dalkaasi Qatar ee leeyahay Qatar Central Bank iyo dalkaasi Turkiga ee leeyahay Turkey Central Bank ayaa waxay ku heshiiyeen labada bangiba in sida ugu dhaqsaha badan labada lacagood la iscodsiyo isla markaana lacagaha dal walba yaala bangigiisa ee dhexe ay doonayaan inay alaabo kaga soo iibsadaan dal saddexaad ee noqdaan labada lacagood ee arintaas ayaa dib waxay kor u qaaday soo noqotada iyo dhutiskii ay ku jirtay lacagta liirada iyadoo oo markaas ilaa iyo hadda jiiradii ay ku jirtay dib u soo socotay isla markaana aysan wax hoos u dhaca toddobaadka u dambeeyay lacagtaas is soo fotaarin tan iyo intii ay Turkigu dib u riixeen weerarkii lacagtooda kaga yimid waxay ugu yeereen dalka Mareykanka iyagu si kastaba ha noqotee dalka Qatar warka qoraalka ah wuxuu ku sheegay bangiga dhexe ee dalka Qatar wuxuu warka qoraalka ku sheegay in xoojinta lacagta labada dal ay aabe u tahay biiraahdeen siyaasadda labada dal ee isku masaha ama sida isku midka ah loo kala danta loogu wada arko waxaana warka qoraalka ee bangiga dhexe ee dalkaasi Qatar intaas uu ku sii daray inay xoojinayaan maalgashiga xooggan ee Turkiga iyo Qadariyiinta u dhaxeeya reer Turkiga ayaa iyaguna sidoo waxay sheegeen in ay xoojinayaan xiriirka waxa la yiri level walba ama waxa la yiri meel walba heer kasta ah ee labada dal u dhaxeeya korbaana loo qaadi doonaa baa lagu yiri warka qoraalka halka dagala socotaan warfadhi media haatana hay'adda dhinaca kormeerka iyo xisaabaadka ee qaranka ee dalkaasi Faransiiska ayaa ka digtay in 840 buundooyin oo ka tirsan dalkaasi Faransiisku ay dumi doonaan sida ugu dhaqsaha badan hadii aan
si degdega loo hagaajin ama loo dayactirin. dowladda dalkaasi ayaa waxay bilowday baaritaano xoogan tan iyo intii uu saalisadii dhacay markaasi burburkii bridge ama buundo isku xidhaysay dalalka si meel u dhow dalalka xuduudda dalalka Talyaaniga iyo Faransiiska taasoo dishay 43 qof oo dad ah. warbixintan oo lagu soo daabacay journaalka la yiraahdo loo yaqaan Manji ee dalkaasi Faransiiska ayaa waxaa la sheegay in la soo baaray ama la soo kormeeray 12,000 oo buundo oo ah kuwa ugu waaweyn ee dalka. waxaa la sheegay in 12,000 buundo ay marka loo qaybiyay baa la yiri 3 meelood hal meel ay u baahan yihiin dayactir, halka la sheegay in 7% ayagu ay halis ugu jiraan inay bariyaha soo socda ama guyaasha dhow ay dumaan oo ay dhulka yimaadaan. warbixintu waxay ugu baaqday dowladda madaxweyne Emmanuel Macron inay qaado waxay ugu yeedhay talaabooyin degdeg ah oo lagu badbaadinayo buudooyinkaas haddii kale ay afka ciidda darsan doonaan dad badan ay ku dhiman doonaan. wakaaladda wararka ee la yiraahdo Associated Press ama AP ayaa soo xigatay wasiirka gaadiidka iyo wadooyinka dalkaasi Elizabeth Boni oo u sheegtay warfidiyaasha in dawladdu ay haatan qorsheynayso inay dejiso $1.14 bilyan oo lagu hagaajinayo wadooyinka qaranka iyo waliba waxa la yiri tumbooyinka bulaacadaha qaada si loo hagaajo baa la yiri oo dib loogu soo dhiso. burburkii meesha loo yaqaanay ama buundadii loo yaqaanay Degno Bridge isagu burburay ayaa waxaa runtii la sheegay in uu ka dameeyay hagaajinteeda Talyaanigu oo lacag ku qaatay lana sheegay in ay yihiin Talyaanigu kuwa ugu wadooyinka xun baa la yiri dadkooda dhinaca dhismayaasha. dawladda qiimaha leh wali warbixin baan dhinaca ka jirnaa haatanna aynu eegno wararka dalkaasi Kuwait ka soo duulay. dawladda Kuwait ayaa ku soo biirtay dalka Qatar isla markaana waxay noqotay dalka labaad ee Carbeed ee ballan qaaday in ay taageero lixaad la siinayaan walaalaha Turkiga. hadalka qoraalka ah ayaa sidaas ah. dawladda dalkaasi Kuwait wakaaladdeeda kuna ayaa lagu sheegay in dawladdu ay diyaarinayso talaabo kasta oo ay ku taageerayso dadka reer Turkiya iyo dawladooda. waxaana la sheegay inkastoo aan lagu ballan qaadin in ay dawladda dalkaasi Kuwait ay sameeyaan doonto wax markaasi ama dabcan aan lagu ballan qaadin inay sameeyaan wax dhaqaale ah oo ay ballan qaaday oo aysan ku cadeyn wakaaladda wararka sida ay sheegayso. haddana dawladda dalkaasi Kuwait waxay sheegtay in ay kol walba haday yihiin ayagu Kuwaidiyiinta ay taageerayaan waxa ugu yeedheen walaalahooda reer Turkiya. wasiirka u qaabilsan dalkaasi Kuwait maaliyadda dawladda Naif al-Hajraf ayaa sheegay in kulanka uu la yeelan doono dhigiisa dalkaasi Turkiga ay ka wada hadli doonaan arrimo dhinaca dhaqaalaha iyo maalgashiga balse lama faahfaahin ayaa la yiri arintaasi. dhanka kale dadka reer Kuwait ayaa barahooda bulshada waxay ku sameeyeen arin aad u la yaab leh taasoo Saudi Arabia gaadhay. tobanaan ama boqolaal reer Kuwait ayaa baraha bulshada waxay ku qoreen barnaamijka loogu magac daray ina mariya xagaaga Turkiga. waxaana yaab noqotay waxaa la sheegay in falaydada ama duulimaadyada dalka Turkiga aadaya ee ka imaanaya dalka Saudi Arabia ee dalka Kuwait ay buux dhaafeen. waxaa kale oo arintaasi ay cirka isku sii shareertay kadib markii xarumaha dhinaca lacag kala bedelashada ee dalkaasi Kuwait laga waayay hal shilin oo lacagta leerada oo la sheegay in dadka reer Kuwait wada gateen lacagta leerada. Mina Girkus oo iyadu madax ka ah mid kamid ah bangiyada ugu waaweyn ee lacagta kala bedela ama lacagta lagu sarrifo ayaa waxay sheegtay in ay u baahan yihiin ama waxay dalbatay malaayiin lacagta Turkiga ah. waxayna tiri halkan ma hayno lacagta Turkiga. waxaa dhamaanteed iibsaday ama lacagtii qaatay dadka reer Kuwait iyo waliba dadka kale ee dalka ka shaqeystay muslimiinta. arintu waxay u muuqataa mid si kale loo wato ayay sheegtay gabadhaasi. hase yeeshee ololahan ayaa waxaa bilaabay maalqabeen reer Kuwait oo la yiraahdo Maxamed al-Samri ayaa wuxuu u duulay dalkaasi Turkiga wuxuuna la duulay dad badan oo qoyskiisa kamid ah iyo asxaabtiisa dhinaca ganacsiga waxayna iibsadeen lacag aad u badan oo leer ah iyagoo ku dalxisay magaalada la yiraahdo Trabzon dalka waqooyi bari dalkaasi Turkiga halkaas oo ay iskaga qaadeen markaasi muuqaalo muujinaya sida ay lacagta Turkigu macnaha ugu sameynayso. inta kadibna waxaa dhammaan olole uu ka bilowday dalalka Carabta oo dhan iyada oo ciwaan looga dhigay ayna u helino Carabta. mid kamid ah shirkadaha diyaaradaha ee la yiraahdo diyaaradda Saudi Arabia iyo waliba diyaaradda kale la yiraahdo Flynas ee iyaduna dalkaasi Kuwait ayaa waxay yiraahdeen waxaanu ilaa hadeerto aanu la'anahay inaanu helno hal kursi oo dheeraad ah
iyada oo saddexda toddobaad ee soo socda oo dhan ay dadku wada booking gareysteen ama ay dabcan wada qabsadeen oo ay la wada wareegeen baa la yidhi kuraasta diyaaradaha isla markaana ay dad ciida dib baa la yidhi kumanaana ay saf ugu jiraan in la gaarsiiyo dalkaasi Turkiga si ay ugu soo dalxiisaan isla markaana lacagta doolarka ah ay ugu soo bedelaan lacagta liirada ololaha kale oo social media lagu qoray oo loo bixiyay Jumaan uu soo qoray xildhibaanka la yiraahdo Jumaan al-Harbesh oo ah nin markaasi xildhibaan ah oo reer Kuwait ayaa waxa sheer gareeyay dad gaaraya malaayiin 1 milyan oo qof waxayna noqotay mid kamid ah tii ugu badneed ee baraha bulshada ee hal toddobaad gudihii qadiyadiisa loo sheergaray wuxuuna arintaasi ciwaan uga dhigay wuxuu ugu yeeray wuxuu yiri jalaafada Turkigu waxa ay guul daraysatay markii la qaaday markii uu guul daraystay buu yiri weerarkii dhinaca military ee 2016 ayuu ciwaan uga dhigay Turkiga ma taageerna kadibna waxa sheergareeyay intaas oo ku dhawaad 900 oo kun oo qof oo markaasi oo muslimiin garan carbeed aan iraahdo oo waliba dalka Saudi Arabia oo runtii aad ay arintaas qadiyadaas markii hore aysan aad u gaarin maadaama aysan jirin hal siyaasi oo reer Saudi Arabia qadiyada ka hadlay ayaa ugu badan hadirta dadka horkacaya iyaguna ololaha arintan ismay taagin sidoo kalena waxa mid kamid ah xubno kale oo arinta oo mid kale xubin kale oo baarlamaan oo asagana leeyahay ama xubin hore oo baarlamaan oo leeyahay Faisal al-Muslim ayaa wuxuu yiri dagaalkan looga soo horjeedo dalka Turkiga waxa uu noqday mid iska cad kadib markii uu guuleystay madaxweyne Erdogan oo la doonayo ayuu yiri in lagu fashiliyo dhinaca dhaqaalaha kadib markii arintii dhinaca afgambigu ay guul daraysatay arintanu ma aha buuri qadiyad qaranka Turkiga u taala waa qadiyad u taala caalamka islaam waayo Turkigu waa qaran muslim ah ayuu yiri sida daraadeed dal kasta qof kasta oo muslim ah iyo dal kasta oo muslim ah waxa waajib ku ah in Turkiga loogu heliyo dhaqaalaha xoogan ee aynu haysano ama aad lacagtooda ku bedelato taas waxa kale oo dawladda dalkaasi Turkiga ay aad u diyaarinaysaa inay soo dhaweyso malaayiinta qof ee ku soo qulqulaya inay ku dalxiisaan dalkaasi gaar ahaan ayaamahan dabcan muslimiintu ay dabaaldegayaan Ciidul Adha oo dalalka qaarkood ay helaan ilaa 6 maalmood oo dabcan dabaaldega ama fasaxa oo ah maalmaha markaasi Ciidul Adha oo iyagoo markaasi dadku aad iyo aad ay soo dhaweynayaan dadka markaasi soo galaya dalkooda wakaalada wararka ee dalkaasi Turkiga ee Andalus ayaa iyaduna waxay qortay in ay kor u kacday diyaaradaha lixaad kale ee dalalka islaamka ka imaanaya guud ahaantood waxaana Turkigu ilaa hadeerta uu ku jira talaabooyin uu iskaga caabinayo lacagta doolarka ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa isaguna gurdhawta sheegay in qalalaasaha Turkiga iyo Mareykanku uu sii socon doono ilaa bisha November xilliga ay dhici doonto doorashada loo yaqaan midterm election ee dalka Mareykanka ama doorashada waqtiga dhexe oo uu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu ku doonayo inuu codad ku urursado colaadda Turkigana la tuso dadka reer America hase yeeshee dadka Mareykanka oo iyagu runtii aan ahayn ko inta badan iyagu ku dhaxbilma arrimaha siyaasadda iyo colaadaha ayaan ilaahay hadirto arrimahaas haba yaraatee kaba hadalba ama ma jirto bulshada dalka Mareykanku wax colaado ilaahay hadirto ay Turkiga u muujiyeen meel laba lagu soo qorin isla markaana meel laba kama muuqato dabaasha qiimaha leh amaana Allah